waxaan rabaa inaan idin siiyo xaaladihii soo kordhay ee coronavirus maanta ay taariikhda tahay 30 Abriil xaaladaha soo kordhay guud ahaan waa 19 xaaladood waxaa lab ah 13 dhadigna waxaa waaye 6 xaaladaha soo kordhay 18 kamid ah waxay joogaan gobolka Banaadir hal qofna wuxuu joogaa Koonfur Galbeed boqolkiiba 74 dadka laga helay da'dooda waxay u dhaxaysaa 20 ilaa 39 halka kuwa jira 40 ilaa 59 ay yihiin boqolkiiba 16 tirada guud ee dadka laga helay guud ahaan wadanka waxa waaye 601 24 saac ugu dambeeyay qof cudurka u geeriyoodo ma jirto alxamdulillah tirada guud ee dhimashada waxay taagan tahay 28 waxa ka bogsooday oo laga waayay cudurka marka testiga laga qaaday 11 qofood tirada guud ee bogsatayna waxay isugu jirtaa 31 waa ku celinaynaa tirada waxaad u jeedaa maalinba maalinta ka dambaysa inay sii kordhayso wacyigelinta in si fiican xawli loo wado in la taxadaro in nadaafada gacmaha iyo jirka iyo guryaha iyo meel walba biyo fariistaan iyo wasakhda la iska nadiifiyo magaalooyinka in la buufiyo dhalinyarada inay guriga joogaan dadka waaweyn cudurrada chronic-da qaba in iyaga naftirkooda taxadar gooni ah la siiyo qofka afka uu xirto mask uu ku baxo banaanka markuu aadayo meelaha ciriiriga uu iska daayo haddii uu dareemo qofka calaamadihii xanuunka inuu wacdo nambarada loogu talagalay oo la soo bandhigo si loo siiyo wacyigelin iyo talo waxaan ku waaninaynaa aan mar walba u sheegaynaa bulshaweynteena Soomaaliyeed taxadarka inuu bato in la dadaalo in si cudurka loo xakameeyo insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa cudurkan Ilaahay inuu dhicmariyo dhibkiisa